xogayaha degmada Garowe caasimada dawladda Puntland Maxamuud Cali Guray oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga dawladda Puntland ayaa ka hadlay horumarka ka socda caasimada banaynta wadooyinka xiran iyo dhisidda kuwa cusub. marka ugu horeysa Puntland TV waan salaamayaa. waxaa ka socota furista dareeriye iyo wadooyin xiran, saarista wajidad cusub, qurxinta magaalada iyo ka qayb qaadashada bilicda soo celinteeda iyo wixii wax ku soo celinaya, diyaar garow wadooyin cusub oo World Bankigu dhaqaalahooda ay bixinayaan iyada laftigeeda la hirgelinayo. haddaad wax iga weydiisay magaalada shaqooyinka ka socda, nadaafadii baa garab taal oo ka dhinac socota, shaqooyinka ballaaran baa magaalada iyo baaxaddeeda ka socota, dakhli ururintii baa ka socota, bilicda magaalada waad aragteen oo dariiqyada wadooyinka waa la qaaday oo waxaanu qaadnaa wixii laamiga magaalada bilicda u keenaya qaybo kamid ah waanu maray oo waanu ka qaadnay balbalooyinkii iyo jaqafyadii iyo sandaqadii iyo wixii hor yiilay. qaybo waa noo calaamadsan yihiin oo waanu calaamadinay oo waxaanu jecelnahay ayaga laftigooda inaanu magaalada labada guriga iyo laamiga ama guriga iyo wadooyinka wax u dhaxeeya inaanu ka qaadno si aan u soo celino bilicda iyo caasimadeeda iyo quruxdeedii. waxaa jira dariiqyada jidcadaha ee magaalada marana waxaa ka dhex socda oo aanu ka dhex wadnaa inaanu wado u qaadno si aanu wadooyinka u banayno, xariyo arigii uga qaadno, sandaqadaha la dhigay uga qaadno. Garowe hadda waxaa ka socda horumar ballaaran, magaalada ayaa sii koraysa maalinba maalinta ka dambaysa, waxaana sii badanaya ganacsatada maalgashanaysa caasimadda kuwaasoo soo kordhinaya bilic iyo shaqo abuur. xogayaha waan su-aal ka weydiinay sababta ku kaliftay in hadda ay baneeyaan wadooyinka ayaa ku jawaabay, waxaa nagu kalifay mar haddaanu anagoo xil saarannahay inaanu bilicda caasimadda soo celino, in dariiq xiran la waayo, in dariiqyada tan iyo xariyo ariyada iyo qashinka iyo jajabka iyo dhagaxa iyo ciidda guryaha la dhistay looga tago ka qaadno. xilwaajibaadka dowladda hoose u xil saaran tahay, masuuliyadana saaran bay ka mid tahay. waxaanu xaqiijinaynaa himilada bulshadeedu naga filanayso, waxaanu xaqiijinaynaa in aanu xilgudashadayada aanu muujino iyo dareenkayaga, waxaanu muujinaynaa door naga maqan oo caasimadda ka maqan oo bilicda lagu heli karo inay tahay dariiqyada qashinka iyo xero ariyada iyo laga dhisay balbalooyinkana in aanu ku bedelano wixii magaalada dheehi lahaa bilicda u ahaa oo geedihii ku beerno. sidaa aawadeed waxaanu u aragnay muhiimad ay leedahay oo naga maqan in ay tahay oo aan noogu soo kordhin karo horumarka noocaasna aanu ka heli karno oo geedaha iyaga markaanu ku dhirayno aanu kaga maarmi doono jaqafyadii iyo balbalooyinkii dadka loo oran jiray waanu harsanaynaa. Maxamuud Cali Guray ayaa sheegay in qorshahoodu yahay Garowe bilicsan, dhiraysan, lana jaan qaadi karta caasimadaha horumaray. xogayaha degmada Garowe Maxamuud Cali Guray ayaa digniin u diray dadka gata dhulka, kuwa kala gada iyo wadayaasha cagaf-cagafyada. qodobka saddexaad, shacabka reer Garowe waxaan ugu baaqaynaa ama dadka guud ahaan reer Puntland iyo Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Garowe dhul aan la xaqiijin dokumentigiisa inuu dokumenti leeyahay inaan cidina gadan karin. waxaan ugu baaqaynaa nimanka dulaalada dhulka gada in ay noqdaaniin dadka dulaaleyda oo dhulka gadaya inay iska soo diiwaan gashaaniin, inaanu shaqada dulaalka xilwaajibaadka saaran, kan dowladda hoose saaran, kan dhulka gadanaya waxaynu wada xaqiijinay oo ka wada shaqeynay inay noqoto. Asad Saciid, Puntland TV, Garowe.